ururka samafalka ah ee FA Foundation oo shantii sano u dambeysay si xidhiidh u ciidsiinayay in ka badan 200 carruur oo isugu jira agoon iyo danyar ku nool gudaha magaalada Boorama ayaa maanta si rasmi u bilaabay ciidsiinta carruurtaasi maadaama ay nagu soo fool leedahay munaasabadda Ciidul Fidri waxaana mas'uuliyiinta ururka FA Foundation kala soo qayb galay furitaanka ciidsiinta carruurtaasi mas'uuliyiinta ururka haweenka qaranka Now ee gobolka Awdal Hibe Maxamed Dheere iyo Radwa Cabdi waxaana ay ka markhaati kaceen dadaalka baaxadda leh ee ururka FA Foundation ugu jiro ka farxinta carruurta agoonta iyo danyarta ku nool gudaha magaalada Boorama iyo arrimahaasi ka hadlayna waxa dowladda ka mid ahaa anaga ururka haweenka qaranka ee Now magaalada Boorama gobolka Awdal waxaanu la furnay oo maanta ay ku qiyaasayeen la furaynaa qaybintii iyo qiyaastii carruurta agoonta masaakiinta rajooyinka FA Foundation waa habla dadaal badan iyagoo ka soo bilaabay Hargeysa soo ciidsiiyay 300 ciyaala dadkii suuqa waaheen dhibaatada ku dhacday ee masaakiintii ciidsiin kar waayay carruurtii u soo ciidsiiyay imika maanta waxay ka qaybinayaan boqolaal magaalada Boorame agoomo danyar rajooyin ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay waxaan ka baryayaa halka ka soo saareen inta soo diratayna ilaahay bedel khayr qaba Allah ku siiyo sadaqada ku balaarata waxba dadka ma yeesho inta xoog ku dartay iyo inta xoolaha ku dartay ilaahay miisaanka xasanaadka Allah u saaro xoog Allah u barakeeyo caafimaadka iyo cimriga iyo awlaadaba Allah u barakeeyo mid kasta umraadkiisa soo macsi Allah ilaahay midka ka saaro waxaan umada kale noo sheegaynaa in la isku daydo oo masaakiinta laga soo farxiyo waayo marka ilmuhu faraxsan yahay oo ilmuhu farxo hooyadu way faraxdaa qaar baan hooyo lahayn qaar baan aaba lahayn qaar baan haysan dabka loo shidan marka ilaahay miisaanka xasanaadka Allah u saaro ubadkii way ka farxiyeen agoomihii iyo masaakiintiiba maanta waxaan joognaa oo ku suganahay xafiiskii FA Foundation iyagoo maanta ay ciidsiinayaan carruurtii agoomihii iyo carruurtii danyartii oo maanta dharkoogii halkan lagu cabirayo ilmo kastana maanta laga farxinayo si uu ula farxo ubadka kale ee waalidadoodu ay u shaqeeyaan ee ay ciida u iibin karayaan iyaga oo maanta agoonta iyo danyartaasi aan iibsan karinin dharka ciida waqtiguna iska adag yahay runtii waxaan oran karaa FA Foundation aad bay u dadaaleen ilaahayna miisaanka xasanaadka ha idinku daro sida aad u dadaalaysiin anu sanad walba waan u imaadaa waan kala qayb galaa wayna dadaalayaan waxa mar walba waxay daboolaan baahida agoomaha iyo danyarta xilliyo kasta oo sidan oo kala ah oo ciida ah waxay ka farxiyaan carruur marka aad iyo aad ayaan anigu ugu mahad celinayaa jazakallahu khayr baan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro cimriga iyo caafimaadka ilaahay idinku barakeeyo agoomaha yaryar ee ka farxinaysaan iyagana ilaahay ha u kadbo Mustafa Caraale Boorama.